waxaa maanta muqdisho soo gaartay diyaarad siday rabbi ha u naxariista madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo habeen ka hor ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Meedka ayaa diyaaradda waxaa ka soo dejiyay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo naxashka huyay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Salaada janaasada ayaa waxaa lagu tukaday marxuumka gudaha airport-ka magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeed kaas oo ugu horeeyo madaxweynaha xileedkiisu ilaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan, gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaanshe Cabdullaahi, madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, qeybaha kala duwan ee bulshada, xildhibaano, wasiiro, culamaa u diin iyo ehlada marxuumka ayaa salaada janaasada kula tukaday gudaha airport-ka magaalada Muqdisho. Salaadii Jimcaha kadib ayay ahayd kadib markii loo soo qaaday meedkiisa meel aan sidaa uga fogeen isgoyska Tawfiiq degmada Yaaqshiida gobolka Banaadir halkaas oo ku lahaa amba dhismihiisa horey oo u dhisay Cali Mahdi Maxamed kaas oo lagu magacaabo masaajidka Cali Mahdi kaas oo si aan sidaa uga fogeen isla markaana ku yaala nawaaxiga isgoyska Tawfiiq horey oo u dalbaday in haddii uu geeriyo lagu aaso halkaasi waxaana maanta dhacday in halkaasi lagu aaso. Goobta aaska ka dhacay ayaa waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaas oo ugu horeeyaan wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube iyo mas'uuliyiin kale. Si kastay ahaataba aaska ayaa waxaa ka soo qayb galay sidoo kale boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo ka qayb galay aaska loo sameeyay rabbi ha u naxariiste madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna madaxweynihii afraad ee soo maray dalkeena Soomaaliya. Cali Mahdi Maxamed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa qof aan ku jirin saaxadda siyaasadda Soomaaliya balse wuxuu ahaa ganacsade Soomaaliyeed isla markaana inta badan ku celcelinayay in la helo dowlad sal fadhida isla markaana u adeegta bulshada Soomaaliyeed.